akhyaar naas ku soo dhawaada markale kanaalkeenii waa odagii been magacyahan aad fahanteen ayaan rajaynaa muuqaalkan idiin hayana maanta wuxuu ku bilaabanaa meel duura waxaynu xaggaas ku arkaynaa nin khuraafaadla ah xoogaa yar shaqo ku dul warwareegsi ahna waday goobtaasnay kula sugneed qof aan wejigiisa lasii shacayn khuraafaadlahana uu xayawaano fara badan madaxa isku geligelinayay kama dambeyntiina qofkan ku dhahay shaqadii aad halkan u timid waa lagu guulaystay iska bax kadibna filimka wuxuu isku jaraa muddo isbuuca ka hor intaysan waxyaabaan dhicin mid ka mid iskuulada ku yaala caasimada Bangkok ee dalka Thailand waxaynu arkaynaa gabdho kubadana volleyballka yiraahdo wada ciyaarayo labadan kooxna ahayeen kuwa aad isku nacab ciyaar dagaal iyo qof walba wuxuu awoodana la soo bandhigay kama dambeyntii guushii ay raacayso Busapa gabar yiraahdo tiimkeeda gabadhan ee kooxdaas kabtan u hayd ku sii darsanaa gabadha iskuulkeeda aad looga boqayay ahayd waana mid ku raaxaysan jirtay in maalin walba iskuulka ardada dhigato ay nafta u keento mid ay ka xoogto lacagtii bariga la soo siiyay iyo mid ay tiraahdo kabaha ay tirtir waxyaabahan ay samayso oo dhanna iskuulkan maamulihiisa iyo macallimiinta ay ka warhayaan balse waan kuwa awoodin inay iskuulka ka buriyaan sababtan wax kale maahan sharafta iskuulkan kooda iyada ayaa soo jiida oo mar walba volleyballka darteed ayay u guulaystaan subax waxaa ka mid ase kalaaskii Busapa ay dhiganaysay macallin uu soo gelinaya gabar cusub oo iskuulkan loo soo wareejiyey magaceedana la yidhaahdo Jindara soo gelitaankeedina kadib gabar kong lagu magacaabo eba Jindara aqoonsanayso maadaama Jindara laftirkeeda ay koox volleyball ah kabtan u hayd welibana aad u taqaano volleyballka sida loo ciyaaro Busapana taas aad uga xumaanayso maadaama ay isdhahaysay iskuulkan kabtankaad ka tahay haatan qofku ugu cariiri karo ayaaba soo galay Jindarana maalinkaas iska ag fadhiisanaysa gabriel oo orsa lagu magacaabo taasoona markasta Busapa ay foodayso naftana u keento xiisadiina kadib maalinkaas waqtigii bariga wax la wada cunay gabrileedii Busapa ahayd ay laftoora ku soo tuurayso Jindara iyo saaxiibteedii cusbalka ay fadhiyeen isla markiina gabadhii hon ahayd oo aad u cabsan jirtay Busapa dhahayso waa waqtigii gabadhan kobaha loo casayn jiray intay soo istaagtana ardadii oo daawanaya kobaha u nadiifinayso intaa ka bacdina galabkii gabdhahan oo baragtigarinaya volleyballka Busapa sida caadi u hay jirtay shaqadeedii wado waxayna fooda ku bilaabaysaa gabar yar oo yaah la yidhaahdo kadib yaah lacag ay Busapa ka dalbatay ay siin weysay taas darteedna Busapa ay gabadhan banoonigii madaxa u gargaraacayso mara fara badan isla goobtana Jindara oo joogtay taas ka xanaaqayso waxaana ay damcaysaa inay ka celiso gabadhan dhibka loo geysanaya gabarleedaanse markii ugu horreysay ahayd qof hawl iyada wato uu soo dhex galo kasii xumaatay balse Jindara ay dhahayso haddii aad wax isku hayso volleyballkana macallin ku tahay anigii adiga ayaa ciyaarayno haddii aan kaa guulaystana ardadan kale ee dhibka aad ku hayso maalin walba waad ka joojinaysaa iidan ay aqbalaysa taas ciyaartana markay bilaabatay Jindara ay soo bandhigayso ciyaaraan caadi ahaynin Busapana ceeb iyo ciil dhaxda laga istaajiyey waxaana ayba damcaysaa inay Jindara weerar ku qaato nasiib wanaagsi tababarahoodii ayaa soo kale dhexgelaya maalintii xigtana iskuulka gabdhihii markasta Busapa ay foodeyn jirtay uguna horeyso kong iyo yaah shalatolana waxay Jindara ku samaysay Busapa daawanayeen dhahaya gabadhan haatan iskuulkan ku cusub ayaaba muddo isbuuc ka yar meel iska saartay anaga maalin walba maxay nafta noogu keentaa waa inaan iska dhignaa kuwa geesiyaala oon iska celinaa gabarleyda waana kuwa aad ugu sii farxay kadib markay ogaadeen Jindara iyadan laftirkeeda iskuulla fara badan lagu soo dhibaateyn jiray laakiin markii dambe geesi iska dhigtay ayadoona bilowday inay iska celiso kuwa markasta foodeeya waxyaabahan ay dhahayeen oo dhana Jindara laftirkeeda dhegaysanaysay balse midaan afkeeda kala furaynin mar dambe soo weydiisay gabdhahan Busapa iyo familka ay ka soo jeedo waxay isugu jawaabayaan Busapa waa gabar famil aan qani ahayn ka soo jeedo balse dabeecadan dadka inay foodeyso muddo hal sana iskuulka ka maqneed kadib ayayba la soo noqotay ka hor gabar fiican ay ahaa jirtay iskuulkana waxaa ku jirta xan ah in gabadhan muddada halka sana ay maqneed cunug wicila ee dhashay cunugiina laga soo riday intaa kadib waxaynu arkaynaa Jindara oo suuliga ku jirta kadib cunto goonada uga daatan ka dhaqaysay lama filaan salkaas sidii ku jirta wiilka iskuulka ugu caansan oo gan liiraahdo meel gadaasheeda ka soo muuqanaya si qarsoodaan u daadaawanaya gabadhan quruxdeeda Jindara laftirkeedana iyadan ku kukuraysa indhaha waaba la iska helayba laakiinse arrinka dhib kale wuxuu yahay gan in Busapa iyo isaga boyfriend iyo girlfriend wada yihiin isla goortaasna Busapa laftirkeeda soo gashay labadan isfiirinayna ku tiri muddo maalmo ka soo wareegatana kadib Busapa oo haatan u muuqato gabar isbedeshay maalmaha ka mid Jindara u imaaday waxayna ku dhahaysaa si gaar inaan kula hadlayaan rabaa waxaana soo wada korayaan ruufka iskuulka Busapana uji maskiina gabadhan kula hadlay soo dhaysay kadib maalinkii aan adig volleyballka aan wada dhelnay xoogaa yar tababarahayga iyo macallimiinta galoob i kuurkuurayaan waxaan ka cabsi qabaa in adiga lagu kaa bedelo kawarna ani adiga haddii aan saaxiibo noqono oo wada heshiino Jindarana waxyaabahaas dhan waxba aan ka soo qaadaynin waana ka aqbalaysaa
habeenkii maalinkaasna jindaaro gurigeeda iska joogtay silma filana baabaartaan ku samaynaysa wiilkii maanta la soo kulmisay gan instagramkiisa waana helaysaa waxaana soo cadaanaysaba in si daba ayba uga heshay qoraalin u qortay uguna sii dartay sawir ay wiilkaas indhaha inay ugu ridaratay dan laftirkiisana gabadhan ka codsadayba inay si gaar u wada kulmaan galabsi galbaha ka mida jindaara oo joogtay iskuulka weliba qaybta ardada ay jiiftaan arkaysa busaaba iyo tababarahooda oo si qarsooda iskuulka uga sii baxaya waana mid qiyaasaysa in labadooda xiriir hoos-hoosiya uu ka dhexeeyo subaxdii iskuulka busaaba ay la kulmayso jindaara waxayna dhahaysaa maadaama gabar xoogaa aqoonta ku fiicnaa tahay waxaa jira arday in gurigooda wax lagu bararaabo gabar haddii aad taas adiga ka caawiso si bilaa shakiyaana jindaara ay aqbashay taas maqribkii maalinkaasna ayaga wada socday imaanayana halkaas jindaarana soo gelitaankeedii dareemaysa wax badan inay khaldan yihiin gabadhaan lala keenay goob rag fara badan ay joogeen waxaana kama dambeyntii soo baxaysa raggan busaaba inay soo adeegsatay si jindaara fiiraha uga tumaan saatee jindaara ay raggan iska celinayso kama dambeyntiina waabay kasoo baxsanay halka subax xigtana busaaba dagaalka la hortimid ardadan ku hordhaysay waad qiyaamtay hasaatay busaaba ay dhahayso in anig meeshaas ku geeyey dadna kuu soo adeegsaday caddeen ma u haysataa dagaal si rabta inay ku qaato jindaara arkayso ardada iskuulka oo dhan oo mobiiladu la soo baxay duubitaana ku haya waas mid xanaaqeeda dib u liqday kana soo gasho qolkeeda waxayna go'aan ku gaaraysaa inay eedana si kale uga argoosato ganna wiilkan labadooda xiriirka ka dhexeeyo kala wareegtay isaga oo dhan la yaabse qorshahankeeda busaaba uu gaarayo qofkii u sheegaba ha u sheegee galabna wiilkii ganna iska tababaranayo ugu soo gelaysa meeshii uu ku ciyaarayay waxaanay ku dhahaysaa ana aqyaanu saamiyaa qof kala xiriir la leedahay isaga soo ku dhahaya haa qof kala xiriir leeyahay ganna gabadhan kibirka badan iyo madaxadeegana kusii darsatay uuba qorshihiisa ahaa nolosheeda dhan inuu ka baxo wuxuuna ku dhaaba anaadiga waxba nagama dhexnaan laga bilaaba maanta taleefankiisa uu dhulka ugu dhacna uu soo qabsa rabay busaaba wiilkan caloosha ka gelinaysa mindi ficilkaasay samaysana darteed kama dambadii iskuulka maamulaha iyo macallimiinta go'aan ku gaaranayn gabadhan iskuulkan inay ka ceeriyaan muddo maalmo oo kasoo wareegatana kadib iskuulka uu soo gaaray news ah in busaaba isdaldashay ama isdishay gabdhihii markasta ay foodeen jireenna ayba asitaankii loo sameynaya ka qayb galeen si ay u ixtiraamaan dhinaca kale halka gabadhan busaaba isku bedashay waxaanu arkaynaaba shaamaankii bilow filimka oo xoogaa yar shaqayaro ku duldur wareegsi ah wado waxaanaba uu soo kicinayaa gabadhan ruuxaanteeda ku saran mar kale gabadhii busaaba asitaankeeda meeshuu ka socday laga maqlayo codka qof dumara oo oynaya dabeel xoogan ay bilaabatay ayna sii hagtay nalka inuu ka damabo meesha dhan kadibna busaaba naxashkii ay ku jirtay eeba kasoo dhexayso welibana kusoo agdhacday jindaara asitaankaas kadibna gabdhaan isaga soo noqdeen halka iskuulka ka deganaan jireen la yaabihiin maanta wixii meesha ka dhacay waase kuwa dhahay waxba maa wax waxaan u malaynaa waa iska dhacda caadiya habeenkaasna iska seexdeen sakha dhexmareed oraasa gabadhiheed soo kacaysa waxayna arkaysaa kursi keligiisa iska soo socdo taasna intay aad uga cabsatay ka kahanayso jindaara balse gabadhan ay ahayd mid hurda weyn mar qurase busaaba ruuxaanteedii weliba qaabkii isku dishay oraasa horteeda kasoo muuqatay ayli afka furatana gabdhihii kale kusoo kacayaan kuna yidhi isdeji waxaabaa dadarkusi dhan waa riyo hurdadoodana kusii coshteen mar kalese oraasa haddana lagu soo noqday waxaanayba is arkaysaa iyadoo derbi up and down loogu xiray madaxeeda hoos lugahaada kor inay qalisana damcayso afkeedii uuba kala furmay kadibna si isbiida dhulka loogu soo daaya madaxeedana uu qara camal uu kala boqaayo waana waqti xadarkaas markay soo kacday waxayna ogaanaysaa riye inayba ahayaan waxay arkaysay habeenkaasna subaxii xigay gabadhii shaqaalaha ka ahayd iskuulka weliba qaybta nadaafadda qaabilsaneed garoonkii voleybolka lagu dheelayay ku dhex arkaysa waxyaaba fara badan oo dadka quraafadlayaasha isticmaalaan waxayna isugu yeeraysaa dhammaan ardadii macallimiintii qof walbana isweydiinayo yaa waxyaabaan meesha keenay tirtirahan ay dhehaysay waxyaabaan waxay caddeen u yihiin in qof ruuxaantiisa laga soo kiciyey hurdada ayadoo la isticmaalayo black magic sida cadigana 3 maalin gudahood ruuxantii hurda laga soo kashay waxay ugu argoosan doontaa dadkii ay dunida ugu nacbay sheekadiina oo bilaabatay galabkii maalinkaas gabdhahan oo volleyballkooda iska baraktikaraynay yaa gabadheeda arkayso busaaba oo ka soo laadlaada meel sare isbiidna ku socoto kadibna madaxa ku dhifatay banooni halka gabdhihii kale la yaabihiin gabdhahan keligii dhulka ku dhadhacayso qofna ayna u jeedin ayaga ayagoose soo waday suuligana ku dhaqdhaqanayeen haweeneyda nadaafadda qaabilsaneed ugu soo dhex gashay waxaana soo baxaysaba ruuxaantii busaaba inay ku dhex jirto waxayna u dhaqmaysaa si aan caadi ahaynin madaxa ku garaacanaysay muraayadii laisku fiirinay mar qurase eeba gabdhahan soo weerarayso nasiibana faxadhacsa gan uu ka soo gaaro haweeneydana gacanta ku qabtay mar dambase shaqaalatan ay ku soo noqonayso qoftii cadiheed ruuxantii busaabana ka dhex baxday dhaawaca gaarina darteed hosbitaalka loo qaadayo sidoo kalena gan maalmahan busaab ruuxaanteedii nafta u keenaysay dhammaanna gabdhaha ay wada socdan imaanayaan nin quraafadla ah oo waxyaabahan xoogaa ku takhasusay waxayna u sharaxayaan dhibka maalmahan haysto odigaans uu ku dhahay ruuxanta waa mid aarkoosi u socoto halhalna ay idinka aarkoosa
doontaa dhammaantiinna waana mid caawiyiisi weydiistay iisoo dhiib mididaydii isbishaalka ahayd la yaabse khuraafaadlahan ruuxaantii busaab ay dhexgelayso waxyaabaha asiga uu isku haystana laga awood badiyey wuxuuna bilaabaa mididii inuuba isku dhaadhaawaco kadibna ardadan ku dhahay ani waxba idiima qaban karo waa inaad aadaan shaamankii bilowga muuqaalka ayaa wax walba idiin hagaaji karo ka hor safarta ka saaray holly water waxyaabahan ay ugu magacaabaan waxaana haysatiin muddo 3 beri ah haddii 3 beri waxaabaan kusoo gabagaboweysiin intiina waa dhimanaysiin intaa dabadina kusoo noqdeen qolalkoodii gabdhahan isweydiinayaan horta waa kuma qofka ruuxaanta busaaba hurdada ka soo kiciyey mid walbana farta ku fiiqaya kan kale waxayna ka shakinayaan yaa iyo kon maadaama maalinkii busaaba la aasay labadooda aysan joogin halkaas saade hon iyana ay taas diidayaan qof walbana soo maskaxda ugu shaqaysiinaya kama dambeyntii dhahayaan waxaan u malaynaynaa busaaba aabaheed ayaa waxyaabaan dha mas-uulka ah maadaama maalinkii iidan la aasay laftarkiisa uusan joogin lama filaansa gaan uu dhahayo busaaba aabaheeda waan aqaanaa waa mid black magica waxyaabahaas ku shaqaysto sidoo kalena kusii darsaday inuu yahay oday aad u caba khamriga waana sababta busaaba ay uga soo guurtay gurigiisa una soo degtay qolalkii iskuulka waxayna go-aan ku gaarinaya odaygaas inayba jawaabaha busaaba ku saabsiisan isaga ka soo helaan maalintii xigtana ardadan oo imtixaan gelisay ruuxaantii busaaba eeba fasalka ugu soo gashay iyadoona dhahaysay kursigeygii isbishaalka ayaa ku fadhiyo ardadana ayba arkayn ruuxaanteeda waxaase meeshii ka dhacaya kabteedii maaragtay oo imtixaankii dhana laga kala ortay dacdaas kadibna ardadan laisugu keenayo volleybolkii stadiumkii lagu dheelayay jindara igana tababarihii volleybolka wax ka weydiinayaan in isaga uu yahay qofka ruuxaanta busaaba soo kiciyey isagaas uu diidaya taas lama filaansi ruuxaantii busaaba eeba ka dhex qadaynayso tababarahan wuxuuna ardadii ka hor qiranayaa in busaaba isaga xiriir hosoosiya ka dhexeeyey welibana ku danaysa jiray ani keliya maahanunu leeyahay xitaa maamulaha waa ku danaysa jiray gabadhaas isagoo iskontarooli karna iskaga siibayba hortii ardada dharkiisii oo dhan isagan kadibna uu kusoo noqday sida caadigeed isla yaabaya ficilkuu sameeyey intaa kadibna galabkii maalinkaas dhammaan ardadan oo wada socday maanayaan guriga uu deganay busaaba aabaheeda isagoo ka maqrana gudaha u soo galeen mid kamid qolkii ku arkaya waxyaaba fara badan ayna isticmaalaan dadka khuraafaadlayaasha taasina waxay u cadaysay inuuba odaygaas yahay qofka busaaba ruuxanteeda soo kiciyey waana kuwa burburiyey wax walba oo meeshaas yaalay waxaase dhaas odaygii inuu meeshan yimaado kadib markuu arko waxaabihiis oli jibiyey ardadan weerarayo ayagana ay u isticmaalayaan holly waterkii uu soo siinaya odaygii goor hore islamarkiina holly waterkaas odaygan jirkiisaba ay dhibayso goobta dhanna ka cararay isagoose ruufka sare koraya halmar lugta u baxday wuxuuna ka dhacaba meesha madaxana u gashtayba biro waaweyn waana uu dhimanaaba intaa kabacdin ardadan waxyaabii odaygan uu ka dhintay dhammaantood gugubayaan kama dambeyntiina qiyaasay in ruuxaanta busaaba sidataas ay ayagan uga hari doonto laakiinse maadaama 3 bir saacado kooban ka dhiman tahay waxay dhahayaan waa inaan aragnaa caawa 5 saac wixii ka dambeeya haddii ruuxaanta busaaba soo noqon doonta iyo in kale habeenkii maalinkaasna gaan iyo jindaar imaanayaan odaygii holly waterka soo siiyey halkii uu ku jiray waxayna farta ka saarayaan bombol ay ka soo qaateen odaygii dhintay iyowana weydiiyahayay hadda sheekada ma dhammaaninoo wuxuuse u jawaabah san umanina way dhammaadeen balse waxaa ku qasbadiin inaad tagtaan tembalka ama macbadka xoogaana soo ducaysta amarkaasna intay qaateen labadu wada socday imaanayaan macbadka halkaana markay kasii tegayeen jindaar ogaanaysa mobilkeeda inay uga soo dhex tagtay gudaha ganna ku dhahday mobilkas ayaa soo qabsana adig gaari ugu sii dhex suug ka hor intaysan gudaha wiilin gabana arkaysa oday wadoonka wax ku iibinaya isla odaygaasna u haysto waxyaabihii busaaba aabaheeda camal kadibna markay weydiisay waxyaabana maxay yihiin maadaama aan soo gubnay odaygan uu jawaabayo waa shay nasiibka qofka wanaajinayo maadaama soo maleeyay in wax walba inay saas ku dhammaadeen gabadhan cabsanayso oo waxay fiirinaysaa saacadda mobilkeeda saaxiibinimana la dhaafay dhinaca kale hosbitaalka iyo khuraafaadlihii oo iska jiifa ruuxaantii busaaba soo weerarayso waana mid ku hubsatay inuu dhintay qofkii labaadee soo weerartan uu noqonaya gan oo gabadhan gaari ku dhex sugayay tvgii gaarigana uu dartiis bilaabaya inuu shaqeeyo ganna markuu gadaal soo fiiriyey busaaba u dhex fadhido inuu gaari ka baxsan uu damca nasiib xumo albaabada dhan lagu xirxiray ruuxaantana intay gaarigii marshadii ugu dambaysa gelisay gan ku dishayba shil gaari wax walba oo ku dhacayna gan jindaara ay taawanaysay waxayna kusoo noqonaysaa hosbitaalkii si arrinka odayga ula socotiiso nasiib xumose waaba uu ka horreeyaba ayada oo dhintay balse xaggaas waxay ka soo xadaysaa mididii odaygan agtiisa qiimaha weyn ka lahayd gabadhii honline u qoraysa farin kadib waxayna ku dhehaysaa sheekadii ma dhammaanin oo ruuxantii busaaba weli way joogtaa dhammaana gabdhihii kale arrinkaasi loo socodsiiyey balse yaha gabadhiheed aaminaynin oo waxay aaminsaneed in ruuxaanta busaaba u dhammaatay iyadoo iska jiifa rabtana hal mar horteeda laga soo muuqday waana la dilaaba dhinaca kale hong iyo horaas imaanayaan halkii gabadhii busaaba hadda kor isku daldali jirtay waxayna go'aan ku gaarayaan in xoogaa shaqa ku dul wareegsiyaa sameeyaan ayagana gacantooda ruuxaanta busaaba ay hawada ugu diraan halka jindaar oo guriga busaaba aabaheeda joogtay halkaas lama filaan kiilis warqado waxaana u soo cadaatay in hong ay taaba qofka ruuxaanta busaaba
Busaba soo kiciyey bilowga muuqaalkana qofkii shamanka la sugnaaba ee ahayd halkiis intay joogtay gabadhan fariin u soo qoraysa oo raasa taasoo ku dheysay aniga hong ayaa joogno stadiumka volleyballka lagu ciyaaro gabadha nambarkeedis igu ceshabtay telefonkeedii uu badamay halkii stadiumkii hong oo raasa ku dhahayso haddii aad Busaba hore qalad ugu gashay hata cafis weydiiso iidana way raacaysaa taas oo dheysay Busaba aniga iyo saaxiibayaashii oo dhan qalad ka galeen nawada cafi maadaama anaga aan ku dilnay la yaabsi halkaas waxaa ka soo baxayaaba in Busaba ay gacanteeda isku dilin balse ay dileen 40 gabdhood filimkan dib ayaa noola celinaa maalmaha gudan Busaba ay heshay qoraaladii ay ku wada hadli jireen Jindara iyo Gan taasna kala hortimid Jindara master hay darteena Busaba ay Jindara weerar ku qaaday maadaama siyaha iyo Kong marba Busaba naftu keeni jirtay ayagana dagaalkaas ku biiray oo fiiraha ka tumay Busaba Kong laftarkiisana oo halkaas jooga isagana oo gabadhan ku daadi jecelkeeda maadaama uu ka warayo in tababaraha xiriir la leedahay sikastaba dagaalkaas intuu socday afartoodan fiiraha ka tumayn gabadhan marqura fiiraha halkaas taalay madaxa ay u gelaysa Busaba waana dhimashadeedii halkii kula kulantay inta kadib ardadan ay qorshooda digayaan si ayaga loo dheeni dikaajeen waxaana sheekada ka digayaan in gabadhan gacanteeda isku dishay ku soo noqwaata hadirkan Jindara oo garoonka imaatay si lamidna ruuxantii Busaba halkaas joogtay gabadhan arkayso in oraasaba mar hore Busaba ay dishay inta ka bacdina Hong iyo Jindara dhexdooda qayl ka bilaabanayso waxay weydiinaysaa ruuxantii gabadhan maxaa u soo kicay Hong ay ku antaxuanaysay mogtay gabadhan marba ay foodin jirtay ama video jirtay waan ku raaxaysan jiray aniga sababtan waxa kalmaan cudur ayaan qabaa haddii ilay foodi waayo anigana noloshayda mugdi ayay noqonay inta ka bacdina labadooda oo dagaalka dhex bilaabanayo Jindarana la soo baxay mididii odayga ka soo xadi jirtay hasaatay gabadhan oo u dheer wadatay wilibana tii shamanku uu soo siiyay isku difaacaysa hasaatay Hong iyo Busaba oo iskaashanay Jindara dhulka dhiganayaan kadibna waxayba ku sii fasaxayaan xayawaanadii hadda ka hor shamanka oo qorafadka ku sameynayay gabadhan caloosheeda dhanba ay kaleen taasoo macnaheedu tahay Busaba ruuxanteedii ayaaba Jindara dhax gashay muddo ka soo wareegtay kadib waxaan arkaynaa Jindara inay weli nooshahay sidoo kale Kong la yaabse Jindara ayba haatan bilowday inay u dhaqanto sida Busaba ay ardayda u geli jirtay welibana gabar foodo badan ay noqotay booskii Busabana aydan ay bedeshay waana dhamaadkii muuqaalka kuma san daawashadaada like iyo subscribe ha ilaawin